wiilkan ayaa family dhan nafta u dhaafiyey iPhone awgiis ayn ka dabagay dhacdadan. wiilkan waxaa la yiraahdaa Buwi wuxuu jiraa 16 sano. Buwi marka wuxuu iibiyaa daawooyin marka aan sharciyeysnayn, wuxuuna ku iibiyaa streetka asagoo marka ku wata bag oo marka uu garabka ku wato. Buwi marka asagoo maalin maalmaha ka mid ah iibinaya daawooyinka marka aan sharciyeysnayn ayaa u yimid oo marka uu ka qaatay xog uu qaatay mobilkiisi iyo marka alaabti dhan oo qiimaha lahayd uu haystay kulli ayaa laga qaatay oo marka uu weyn yahay mobilkiisi iPhone-ka ah. Buwi marka uu ka hanaaqay wixii lagu sameeyay marka wuxuuna ku fikiray inuu aarguto. Marka Buwi xaafadda ayuu tagay, wuxuu isku dayay inuu ogaado mobilkiisa meeshuu yaalo asagoo marka isticmaalaya application la yiraahdo Find My Phone application la yiraahdo asoo isticmaalay ayuu eegay. wuxuuna arkay marka xaafad marka wax yar u jirto inuu yaalo mobilki. marka wuxuu ku fikiray inuu aarguto. kadib xaafadii ayuu Google-ka ka eegay marka IP address-keeda iyo qaabkay u dhisan tahay. kadib wuxuu wacay laba saaxiib oo marka saaxiibadiis ah, oo marka saaxiibo ay yihiin oo isku dhow yihiin ayuu wacay. kadib wuxuuna u sheegay wixii kulli oo ku dhacay, mobilka laga qaatay, alaabtii laga qaatay uu sheegay. mobilkana marka inuu baaray oo marka xaafadaas uu yeelo ayuu u sheegay. labada saaxiib oo marka u yeeray ayaa kala ah mid la yiraahdo Gavin iyo mid la yiraahdo Dillon. Gavin oo marka jira 16 sano iyo Dillon oo marka jira 14 sano. kadib labada saaxiib wuxuu u sheegay inay ka caawiyaan maadaama uu rabo inuu aarguto oo mobilkiisa iyo alaabtiisa kulli laga qaatay, oo markaana uu ogaaday hadda xaafadda uu mobilka yeelay inay u dhow tahay, una rabo marka inuu aarguto. Buwi iyo Dillon iyo Gavin waa ay kulmeen marka waxayna marka la yimaadeen tilaabooyin marka ay qaadayeen oo 3 ah. tilaabada koowaad oo ah inay u dhacaan guriga tuuga oo marka gurigiisa ay gudaha u galaan. tilaabada labaad oo ah inay gurigiisa markay u dhacaan gudaha ay gasoline ku wada daadiyaan guriga dhan, meel walba ay gasoline ugu daadiyaan oo daaqad galaal dama ama meel ay ka soo galaan maadaama marka Google-ka ay ka baareen guriga siduu u dhisan yahay qaabkiisa kulli ay la socdaan. tilaabada saddexaad oo ah inay guriga marka kadib gasoline ay ku wada gidiyaan ay marka dab qabadsiyaan oo in iskiga soo cararaan. marka waa ay tageen qorshii ay ku dhaqaaqeen, waxay soo gateen gasoline iyo maskiyo marka wajiga ay ku xirteen maadaama guriga camera inuu ku xiran yahay Google-ka ka arkeen. marka waxay soo gateen maskiyo si aan lagu aqoonsanin marka wajiga ku xiranayeen ilaa gasoline iyo wixii ku daadin lahaayeen kulli ay soo diyaarsadeen. ilaa waxa kale oo ay suubiyeen Google-ka ay si fiican uga eegeen IP address-ka guriga qaabku u dhisan yahay, hadday dab qabadsiyaan meeshii ka soo bixi lahaayeen wixii kulli ay eegeen. marka iyagoo marka dhan walba ka eegay guriga si ay dhow marka ula socdaan qaabku gurigaas u dhisan yahay iyo meeshay ka soo bixi karaan iyo meeshay ka soo geli karaan. 2 isbuuc kadib waxaa la gaaray habeenkii ay aargudan lahaayeen oo marka ay hawsha fulin lahaayeen. 3 tacawin markii la maraayo waxay xirteen maskiyo oo is diyaariyeen, waxayna aadeen dhankii marka gurigii tuuga ay aadeen. kadib gurigii tuuga ay tageen, dhanka gadaal dambe ay ka soo galeen, gudaha ay u soo dhaceen. 3 tacawin ma la maraayo waana hurdaayeen familka, laba familya kala degnaay waana hurdaayeen. gudaha ay u soo dhaceen, gasoline-kii ay hayeen kulli ay ku wada daadiyeen meel walba ay gasoline ku daadiyeen. dadkina way jiifeen hurdaayeen lamana maqlaynin. marka weelashay gasoline ku jirtay markay ku wada gidiyeen oo ay dhameeyeen kadib ay dab qabadsiyeen ayrko baana ka soo baxsadeen. kadib muddo dheer ma qaadanin dabkii guriga dhan dab waa wada qabsaday. marka familka waa soo kacay, waxay ku soo kaceen alamkii marka oo dabka iyo qiiqa markuu sense gareeyay qaylinaya alamkii dabka ayay ku soo kaceen oo qaylinaya. kadib qolkii ay jiifeen iridiisa ay furaan dabka ka cawayaa dhankaas ka bixi waayeen. dan dhan kaloo daaqada gadaal leh ay fiiriyeen, dhan gadaal ay ka baxeen. waxay ahaayeen gabar yar, aabaheed iyo hooyadeeda ahaayeen. marka aabaheeda markuu daaqada furay asagaa ka booday daaqada, kadib gabadhii loo soo dhiibay, ayadii haddana soo booday, kadib waa baxsadeen. marka laba family ahaayeen. familka kale ayuu maqlay iyagoo marka is aruursanaya inay dhinac ay ka baxaan la'san, ayuu orday iridii ayuu tagay iridoodii. marka baasbuarka iridii ku xirnay ayuu ku qaraacay, isku dayay inuu furo marka uu ku qaraacay oona ogaada ilmihii dabka qabadsii waa carareen iyagoo iska tageen. marka gadaalaad soo mari iridiyaas baasbuarka ku qaraacay waa furmi waayey. kadib waxaad suubay asagoo la xarbinahaya
ayaa booliis oo wadada maraya markaa batrool suubinayay oo magaalada marmar qaar dad waxaa jira ku wareegta wadada asagoo maraya marka ayuu arkay dabkan waa soo orday meesha duu imaado waxa uu imaaday ninkaanay markaa faamilka kale oo soo baxay ninkii aabihii faamilka kale oo markaa soo baxay oo markaa basword ku qaracaya oo ka noogsanad u imaaday baswordka maha haraanteen ku dhufanaa siri haraanteed la dhacay marka albaabka u jibay saantaad u jibiyey waxaad arkay faamilka kale qof ka mid oo meyd oo markaa wada gubtay oo wada gubanahayo oo markaa oona dhintay ayuu arkay kadib gadaal ayuu u istaagay dabkana waa weynaay dabdamiska imaada day damiyaanba faamilka marka waxay ahaayeen 5 ruux oo markaa labada qol horta inkii dhaca ee waxaa degnay laba faamili oo markaa kasoo jeeda Senegal kasoo jeeda inaad taqaanaan Senegal wadanka liilada Senegal ayaa degnay labadii marka ilmahana marka arrinta yaabka leh ayaa ah ilmahan ay applicationka ay isticmaaleen oo marka lagu eego mobile markuu ka dhumo wuxuu siiyey location qaldan ayuu siiyey marka tuugii mobileka ka dhacay ninkan ma uu degneen gurigaas guri qaldan ayuu siiyey marka labada familku waa soo baxeen waxay aabba iyo gabadhiisa iyo xaaskiisa ahaayeen familka kalena 5 ay ahaayeen oo wiil caruur ku jiraan marka kuwa wada gubteen wax ka baxsaday ilaahay u timalahan familka kale bis dabdamisku ay damiyeen meeshii wax ka badbaaday malahan kadib booliisku waa daba galeen baaritaan ay suubiyeen kaamirada taa waa laga arkay iyagoo markaa soo galaya laakiin maska xirnaayeen lama aqoonsanaynin kadib 2 bilood ayaa dhaaftay waayo keeskii qof markaa familka waa la wareystay oo markaa badbaaday qof markaa cadow ah oo markaa ama asaga yahay dhihi karaan uusan jirin qof markaa ay ugu shakisan yihiin markaa dhihi karaan waxaa waa suubin karaan uusan jirin waxay noqotay inay 2 bilood qof loo soo qabtin uusan jirin keeska qofka geysteen markaas aan la haynin marka booliiska qorshe la yimaadeen oo ah inay markaa la baara google-ka qof markaa IP address-kaas google garay maadaama qofku meeshaas imaaday qof markaa guriga aqaaniya isu eg yahay oo google email uu ka fiiriyeyba maadaama iyagu wax cadow ah hadda ka shakisan yihiin oo dhadhow aysan jirin marka baaritaan warqad marka waxay soo goosteen oo markaa u siinaysa awood in loo soo gudbiyo qof walba google-ka uu soo gudbiyo qof walba oo markaa IP address-kaas oo familkaas IP address-kiisa qofkii baaray oo markaa oo gurigaasi qaabka u dhisan iyo kulli baaray in markaa google-ka uu soo gudbiyo IP address-ka laga fiiriyay kadib waxaa la helay 2 meelood 2 IP address la helay 2 meelood ay booliiska tageen oo soo qabteen ay soo qabtaan waa 3 wiil ay noqdeen markaa 2 IP address kadib 3 wiil waa la wareystay waxay ka bacdi iyaga waxay sheegeen wixii kulay geysteen Dillon marka maadaama uu jiro 14 sano uu yahay caruur oo markaa sharci uusan qabanaynin waxaa la geeyay meesha lagu xiray caruurta si hadhow markaa lagu gudbiyo xabsi loogu sii gudbiyo markuu weynaado marka 3 sano ayaa meeshii caruurta lagu xiray la geeyay 3 sano ayaa lagu haynaa meesha caruurta markaa lagu xirayay 3 sano markuu soo dhameysto 7 sano ayaa lagu xukumayaa kadib buuyi oo markaa ah ninka arrinta kulli ka dambeeyay asaga waxaa lagu xukumay 60 sano oo xarig ah midka kalena oo ah Gavin asagana waxaa lagu xukumay 40 sano oo xarig ah marka dhacdada intaas ay ku egtahay khayr aan rajaynayaa dhacdiyoonka ugu yaabka badan dunida in soo gudbinayaa maanta wixii ka dambeeya marka maalin muuqaal aan soo gelinaya insha Allah muuqaalka marka daawataan like saara comment-na ka soo bixiyo muuqaalku aan dhameystay ku soo qor insha Allah marka si aan ku ogaado inaad dhameysteen